safiirka Soomaaliland u fadhiyay dalka Itoobiya Ambassador Maxamuud Aadan Jaamac Galal oo warmay warbaahinta qaranka ayaa ka hadlay warar lagu baahiyay warbaahinta maxalliga ee Soomaaliland ka qortay deeqa waxbarasho oo dawladda Itoobiya siisay Soomaaliland waxaana uu safiirku sheegay inaan waxba ka jirin eedaha iyo wararka lagu faafiyay warbaahinta qaar kamid ah isagoo safiirku ka hadlay amuurta deeqaha waxbarashada dalka Itoobiya siisay Soomaaliland waxa uu yiri waxaan kuu sheegayaa warka la soo qoray inaan waxba ka jirin waa barkumataal waa been warkuna siduu u aasaasmay ama u unkamay baan kuu yara sheegaya waxa weeyaan waxaana lagu yiri iskuulo cabanaya oo beela ka soo jeeda anigu maaban ogeyn inay iskuuladu kala beela yihiin iyaa cawday oo yiri saamiga iyagii scholarships maanu helin haddaba waxaan halkan ka cadaynayaa inaan saami beeleed lagu kala qaadan scholarships waxa lagu helaa public iyo private school midna anagu danayn mayno ardaygu ka sareeyo ka dadaalka badan yahay ka grade sareeyo iyo scholarship ka galaya sidaasaa lagu qaybiyay sidaasay tahay maadaama huuhaadan iyo beentan ay soo baxdayna waxaanu go'aan gaarnay inaanu maanta release garayno ama publish garayno liiskii oo kaamila ardaydii la siiyay si loo arko inaanay waxba ka jirin mas'uuliyiin baa saamigii badsaday ama beesha oodo kaliya scholarships-kii siiyay waxa lagu kala qaataa sida loo xaq leeyahay ee cadaaladda ku jirto ee ardaydu u kala sareyso geesaas kale safiirka Soomaaliland u fadhiyay dalka Itoobiya Ambassador Maxamuud Aadan Jaamac Galal waxa uu warbaahinta Soomaaliland ku booriyay inay bulshada u baahiyaan warar sax ah kana fogaadaan wixii xaqiiqada ka fog ee been abuura isagoo safiirku la hadlay warbaahinta waxa uu yiri ka oran lahaa arinta warbaahinta iyo been abuurka waxa dhinbaa yiri naftii ladani hooskiisa haday dhargahayn weyda ay raatida nimcada kibirna hawleeyo waxaan leeyahay saxaafadda Soomaaliland waa xor saxaafadda Soomaaliland ay haysato way ku yartahay adduunka waa loo seeta dheereeyay yaanay isdabrin marka anigu horta waxaan oran lahaa responsibility iyo mas'uuliyad baa idin saaran shaqayn mayso nin website ka mas'uulaho editor in chief inuu hadhowto yiraahdo inay yar baa galiyo warkama hayn waxaasoo iminkan xaal bixinaya sidoo kale safiirka Soomaaliland u fadhiyay dalka Itoobiya Ambassador Maxamuud Aadan waxa uu shacabka Soomaaliland ugu baaqay inay isku hubiyaan wararka waxba kama jiraanka warbaahintu ay baahinayaan waxaanu safiirku ballan qaaday in bulshada Soomaaliland ugu adeegi doono cadaalad iyo sinaan maxamed waxaan bulshada ugu baaqayaa siyaasadan beel nacaybku ku jirto iyo beentu inay dadku ka taxadiraan oo iska ilaaliyaan ha aaminina wax kasta oo aad maqashaan Maxamed Jaamac Galal warbaahinta qaranka Ethiopia